munaasabadan ay xilalka kula kala wareegayeen hantidhowrka guud ee Puntland oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Puntland iyo hantidhowrkii hore ee Puntland Jaamac Maxamed Cismaan ayaa ka dhacday xarunta hantidhowrka guud ee Puntland ee Garowe. gudoomiyaha xilka ka degaya Jaamac Maxamed Cismaan ayaa sheegay inuu xilka ka tegayo iyadoo ay qabsoomeen shaqooyin kala duwan kadib muddo 10 sano ah oo xilka joogay. shaqaalaha hantidhowrka Puntland ayuu uga mahad celiyay inay la soo shaqeeyeen muddo dheer xilli ay ku jireen duruufo adag oo ay ugu horeyso mushahar la'aan. wuxuu tusaale u soo qaatay in sanadkii dhamaaday ee 2018 ay shaqaalihiisu heleen 4 bilood oo kaliya mushahar, halka sanadkan iminka lagu jiro oo bishii 7 maraya la helay 4 bilood oo kaliya, 3 biloodna ay ka maqan tahay. maanta ay taariikhdu tahay 12 Juulaay 2019 xafiiska hantidhowrka guud oo aan gudoomiyaha ka ahaa oo aan ku wareejinayo gudoomiyihii la soo magacaabay Cabdirasaaq Cumar Faarax. munaasabad aad u fiican weeye. 10 sano ayaan halkan ka ahaa gudoomiyaha hantidhowrka, 7 sano hantidhowranka ah. waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa sharafna ii ah xafiiskii intaan ka soo shaqaynayay inaan maanta ku wareejiyo aqoon-yahan aniga iga firfircoon, iga hawl karsan. aan rajaynayo inay iga dadaal badnaan doono ilaahay hadduu yidhaahdo. waxaan rajaynaynaa dowladdoona inay soo saarto insha allah. midmentigaasku wuxuu ku xiran yahay horumarka xafiisku gaarayo oo hadda World Bank uu naga dhowrayo oo mashruucan BFM uu gacan nagu siiyey oo khabiirada iyo tababarada isbeddelka ku sameeyay xafiiska aan ku mutaysanay oo qalabkan hadda yaala oo inoo muuqda iyo agab elektroonika aan ku helay ayaa waxay dhowrayaan in amendmentigaas la sameeyo. xafiisku wuxuu leeyahay strategic plan waa kan 5 sano weeye 2018 2022 sanad walba waxa la qabanaya kaas ku qoran yahay. waxaan naga kaalmeeyay mashruuca BFM. xafiisku wuxuu leeyahay qorshaha miisaaniyadeed ee BFM. qorshaha wuxuu leeyahay baarisaha 2019 iyaduna waa noo qoran yahay. soo ma saasaa noogu qoran yahay. maalin walba waxa la qabanaya, bil walba waxa la qabanaya. wixii la qabtayna waa la qabtay, waxaan la qabanna waxaa la rabaa in dib laga saxo. qoraal dib u habeen iyo tayeynta xafiiska hantidhowrka guud ee mashruuca CIB ayaa socda. waxaa la sameeyey hay-adihii la yidhi waa ka faa'iidaysta, waa la tayeynayaa, waana la habaynayaa oo qorshahooda maxaa la yidhaahdaa qaab dhismaadkooda dib loo habaynayaa. oo mashruuca CIB kama aanan noqon fayskii koowaad, fayska labaad baana la ku daray. fayskii labaadna weli ma soo bixin, laakiin waxaa la sameeyey daraasad baa la sameeyey. daraasaddii la sameeyey qoraalkeedu waa inoo yaallaa. waxay u baahan tahay xafiisku inuu dhammaystiro, CIB-na lagala xiriiro. intaas waa intii maaragtay xil wareejinteena noogu jirtay. markii laga hadlo shaqaalaha, annaga hadda waxaan joognaa bishii Juulaay baan joognaa. maanta waa 11 May iyo Juun midna ma qaadan. sanadkan 4 bilood baan qaadanay. 4 bilood soo ma waxaan ku ilaahay ugu mahadnaqayaa xafiisyada dawladda, xafiiska ugu shaqo badan dadka ka shaqeeya xafiisyada dawladda. xafiis wax walba la imaan uga shaqeynaya.
kow wax ah hantidhowrka marka muddadaan wada shaqaynaya anigu waa ugu mahadnaqayaa waxa ay qabaan oo dhibaatooyina waayo arag baan u ahay mas-uulna waa ka ahaa dhibaatooyinkooda iyo arrimaha ku imaanaya waxaan wax ka qaban karin ma ahayn laakiin waxaanu ku wada joognay dulqaad iyo sabir gudoomiyaha cusub ee hantidhowrka Puntland mudane Cabdirasaaq Cumar Faarax ayaa shaqaalaha hantidhowrka Puntland ka codsaday inay la shaqeeyaan isagoo sheegay in la dardar gelin doono shaqada waajibaadkeeda iyo xuquuqaadka shaqaalaha intaba waxa aan rabaa sidoo kale inaan xuso anigu hal qof aan ahay oo idin yimi shaqada xafiiska ka socotayna xafiiska kan cid kasta oo joogta muhiim bay u ahay waxaanu ku wada shaqaynaynaa maaha waxaan anigu jeebkayga kala soo baxayo iyo awaamir aan wato iyo shaqo aad idinku qaban weydeen oo aniga aad iga fadhiyaysaan ma jirto waxaanu dardar gelinaynaa shaqadii xafiiska taalay waxa kaliya anigu aan rabo idinku soo kordhin karaa waxa weeye in baahiyaha aad ka hadasheen oo gudoomiyuhuna sheegay wixii laga qaban karo oo karaankayga ah inaanan waxba hakran dadaal iyo juhdina ku bixin intaas kadib waxaa si toos ah loola kala wareegay warqadaha rasmiga ah ee shaqada iyadoo gudoomiyaha cusub lagu soo wareejiyay xafiisyada kala duwan ee hantidhowrka gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee hantidhowrka guud ee Puntland Yuusuf Cali Siciid ayaa kormeerka xafiisyada ee gudoomiyaha kadib warbaahinta la hadlay baxda saxaafadda aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalka nagala soo qaybgasheen xil wareejinta hantidhowrka guud ee Puntland saaka oo ay bishu tahay 11kii bishii 7aad waxaa dhacday xil wareejintii hantidhowrka guud oo ay kula wareegeen Cabdirasaaq Cumar Faarax gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyihii hore Jaamac Maxamed Cismaan xil wareejintaasi si wanaagsan bay u dhacday isbedelkaasina wuxuu ka yimi isbedelka cusub oo ay wado dowladda Tayeyn iyo Tigsi oo hogaaminaya mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland si hufan bay noogu dhacday waa soo dhaweynaynaa gudoomiyaha dhalinyarada ah oo aqoon-yahanka ah waxaan kaloo soo dhaweynaynaa dhammaan isbedelada dalka ka dhacay xafladaasina si wanaagsan ayay noogu dhamaatay xil wareejintii maanta waa u sameynay waa u kala wareejinay labadii gudoomiye xil wareejintii si sharafana bay noogu bilaabatay shaqadiina waxaan u wadaynaa sidii iyo si ka dardar badan haddii ilaahay yiraahdo ka soo qaybgalka aad nagala soo qaybgasheenna aad baad ugu mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Khadar Cawl Ismaaciil warbaahinta Daljir Garowe